وهويين dhibaataysan waxa ay raadinayaan ubadkoodii oo ka kooban 8 isugu jira rag iyo dumar oo ku dhibaataysan duleedka Liibiya waxaana sheegeen in ubadkoodaasi jirdil lagu sameeyo isla markaana loo haysto madax furasho lacagteedu dhan tahay $10,000 halkii qofba lacagtaasi oo ku badan awgeed waxay ummadda islaamka ka codsanayaan inay soo caawiyaan waa qoysas dayara ma haystaan adduun ay ubadkooda ku soo badbaadiyaan waa ay dhibaataysan maalin iyo habeen waxay maqlaan dhawaaqa iyo ooyinta ubadkooda oo jirdil lagu sameeyo waxaana lagu hanjabay haddii lacagtaasi la keeni waayo in naftooda ay ku waay doonaan sidoo kale halkaasi waxaa joogay dhalinyaro iyagu ka naxay ubadkaasi isla markaana dadka ugu baaqaya in la soo caawiyo ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay waalidka dhalay ubadkaasi dhibaataysan waxaana ka codsadeen xukuumadda gaar ahaan madaxweynaha iyo ummadda islaamku meel kastoo ay joogaan inay soo caawiyaan halkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka oo dhan meel kasta ay joogto ummadda islaamka meel kasta ay joogto gaar ahaan dalka Soomaaliland waxaan leenahay dawladda Soomaaliland lagu meel kale ma garanayno dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa in caawinteeda ee ku jirta dadka in sida ugu dhaqsiyaa badan looga soo daayo oo looga soo caawiyo adduunyo ducada labadaba waan u baahanahay sida ugu dhaqsiyaa badan looga soo daayo ubadkaayada 8 ay dadku ku jira intaasaan idin ka codsanaynaa sheegnaa si aruurta dhalay waxaan codsanaynaa dawladda iyo shacabka in aruurta loo soo caawiyo oo gacan iyo afyaadi kiilale lagu kale wax loo kale karo looga tago duco maxay lacag wax kasta ilaahay loo soo bariyay ilaahay looga soo bariyo aruurta afriina inta socdo biraha iyo diyaar iyo dhagax oo wixii la helo looga dhacayo عرب وين أنا شوفت أنا ما والله ينكرنا عرب حبنا ما عرب أنا دول من عرب والله عرب طيب يستوى أيضا وعدت لما يصير يستوى ما تخيس إلهي الله صف إلهي الله صبر يا وا مصبر عبدي وحنا قاعد صار لنا عرب طه وكوي وعلي وكوي ودي وينو جباع ناس سواه ليس أحوال بنا الدولة يعني لا يقبل يعني جاي يكسر جاي بعول عليه يكسر جاي وهي ما عارفنا قبل هاي أنت جاي وحيانا لا يوم المريض يعني لا يكبرين معلق أيها كسر نقضاء من عبد الرحمن وكم ذا والدين كعبة غيرير هل خافوا حنبن يكون هستان عدو قد تدقلبه marka qaybina waalidkii way maqan tahay si kaliisa ay oo aan islaan jimcaayay idinka soo gaadhin iyo awlaada yaryar ee shucuurtooda arkaysana weerka xidhan ee marar dilaacsan aan awgeed ayaan si qarba maanta ugu qabanay codsiga aanu dadka islaameed ka codsanayno meel kasta joogaan baynaanu baaqi gaarsiino miiliyahana maaha mid intaa ku koobnaanaya insha Allah billahi kariim ilaahayna waanu baryeynaa aadmigiisana waanu baryeynaa sababtoo ah قال قيلان لا ير لما كعيه بالليلي هدي أنا هاي والدتي وبد كدلي وحأنو دقينا وشيءنا مسلم كمير كستو وشوجو وهو الرئيس إسلامكو مير كستو شوجو إذا أنا قال يا إسلام بقى عطسنا وبد كائني كرجال وفديان هذا إسلام كيسكت شركة أي كا بحساب ترسين تا إسلام الماضي وحنقع عطسنا إنه بد كا لو جرمدو مير كستو شوجان بق مقع الصومالي مير كستو شوجا بق sida Soomaali weyn iyo Somaliland ay aad iyo aad waxaan uga baryayaa madaxweynayaasha wasiirada la doortay ubadka mas'uulka ka ah ee iyaga oo jooga in adalku ka hoos ka haysanayo magafuhu u jooga Soomaaliya iyo Somaliland been waxyaan la isu sheegin ubadku ma duulo ubadkan yaryar ee la tashkiiliyay magafuus wadanku jooga in laga hawl galo ubadka la soo celiyo oo ubadka sida wadankooda lagu soo celiyo looga hawlgala ayaan codsanayna ubad imkaan leenahay noo sii socdaan noo sii taariideen maaha lacag weyn laga dhamaatay waa shahaadadii afraad marka ay ku jiraan marka ilmaada rayaal anigoo hooyo shucuurteedu kacsan tahay oo aanan waxa ku hadlaa aanan kala garanayno miliya kii igu horeeyay yahay waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan leena uga hawlgashaan waxaan idinku baryaynaa qalbi naxariis leh islaamnimada aad iyo aad baan idinka tuugaynaa meel kasta oo aad joogtaan babaaqaas in madaxrayaal fadlan waxaan idinka sii codsanayaa inaan meel walba sii gaarsiisaan in waxaan aad ula hadlayaa safiirka Soomaaliyeed
ummadda Soomaaliyeed u safiirka anigu anoo reer Somaliland magaca Soomaaliyeed iyo sumadda Soomaaliyeed baan ku abtirsanaya anoo reer Somaliland waxa weeye qadiyadda Somaliland iyo Soomaalinimadu dadka iskaga jirta meehi anigu qof dawladda Soomaaliya ku garaadsatay baan ahay marka waxaan idin ka codsanayaa ilmaada reeyal ubadka yar in loo kaco dadka la weydiinaya habeenka yawmal qiyaamaha waa idinka aad iyo aad baan idin codsanayaa aad baan idin baryaa warka waan ku dheereeyay iga raali ahaada وانا ندعيني امين يدها الهي وحن برينا الهي وحن كبرنا روب بدايه الهي وحن كبرنا إن الهي نو صفر فرمحات هذين إن الهي نو البلدي تشيلو بعدين اللي هي بلغين وكسب الغمحات هذين اللي هي تشيلو بعدين أنت وأمتكم قري أو السبو الله إلهي هدي أنا أمرك إلهي كل علم ما يدعين أو تشاركوا منو قدمين لو ما نحريين ومتى أمرك إلهي أمر أنا هنا نوصل بحين متري اللي هي كسر صاري ونقصتين وقبرو اللي هي كسر صاري ونقص صار محات هذين المادي يصير لها المسخرة محين وترها ما أنت صعد الساعة تشابين لها وقرق محاتر هذا إلهي إنه مدينة برقر بعد سمر يوم حاتر هذا إنه ذاك إلهينا بتشعل سينتي نوارك حلاني إيه أنت كنت كوتشر تسكرا إلهي أنا ذلكينا ليدي معسية إلهي ذلكينا ليدي توصو حكمتي سيا رحمتي سيا إيه من علي سمحاتر هذا إلهي وحن بري إلهي وحن كبري يا ساعة الساعة تشابين ونوبر إلهي ونوبصصا إلهي ونوبصصا هذا بان السلام يا sidoo kale dhalinyarada halkaas ka hadashay oo ahaa asxaabta dhalinyarada maqan ayaa iyaguna si adag ula hadlay dhalinyarada waxaana si naxariis leh uga codsadeen ummadda islaamku meel kasta ay joogaan inay caawiyaan isla markaana ay garab istaagaan sida ubadkaasi looga soo deyn lahaa magafayaasha ku xanibay waxaana ka mid ah hadalladoodii dhammaan dadweynaha adduunka oo salaamaya intaa kadib waxaan halkaas ku nimay inaan maaragtay أنا دو قادم كريمو دنيارتي أنا كريدو دنيارتي ماي صور كرمي يسديدها عشان أنا يواصل في أولاد وإلا هدي يكحران يقول كتير عادي هران الله دري مشان $200 حتى أنا مرة والله قصير يقول كتير ولا يجين كها صادر باش مع $200 مع مقاسة براديت وحن ويني qofkii awood karaya saddexda lambar inuu ku soo diro ekraankiisa oo ka qayb qaadanayo nimadina xiran Liibiya oo aan muxuu ahaa qaadan karinay maalin kasta la jiddilayo ku socdo aqal ku socdo waqtigiina waqti yar qabteen oo ka soo dhamaanayo marka sidaa daraadeed waxaan dadka ummadda muslimiinta farasan lahayn annagu hadda dhalinyartina la mid ahayd ee maartay magaalada iskuulka ahayn oo dimaanta aan ku jirto guud in dadku maartay muslimiinta ku soo caawiyaan ay saddex lambar kalsoon leedahay iyo taabshiil iyo aqoonka taabshiil iyo dahab inay ku soo daraan waxay kiraankooda insha Allah السلام عليكم أنا مقعد يا سلام حي عليه أكم باق دير waxaan ugu dirayaa anagoo ah dhalinyarada Soomaaliland ana dhalinyarada Soomaaliland wax ka codsanaa ummadda islaamka wixii dee karayaan badiyay ducada labadaba maanta way u baahanahay inay dee labadaba hardee kii lagu caawin karayaan badina lagu caawiyaan walaalayaal waxaan leenahay dhalinyarteeni ayaa lagu haystaa Liibiya waddanka Liibiya una dirnin markii hore $15,000 waxaan leeyahay hala caawiyo ana loo soo caawiyo nambarada kala assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh الرحمن الرحيم magacayga waxna wali cabdi waxaan ka damqaday ee bartanka keenay oo walaalaha iyo ku dhibaataysan dalka Liibiya ee cadawga ay gacanta ugu jiraan waxa xagga ummadda muslimka aan ka codsanayaa wixii karaankooda ee walaalahooda ku dhaamaan lacagta loo haysto cadawgu haysto ee $10,000 markii hore $20,000 bay imika $10,000 bay ka daayeen waxaan ka codsanayaa xaggan baa uga dariyaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay waa dhalinyartaadii waa dadkaagii waxa halkaa ku dhibaataysan mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay ugu horeyn inaad adigu
wax ku tarto dhalinyartaada waxaana soo damqay ee halkaana keenay ee baaqaan dirina oo walaalahayga halka cadowga ku haysto ee godka lagu riday ee mahaliga maalin la dilayo ee bil lala dhacayo waxaan leeyahay ummadda muslimiinta wixii arka videoga inaanay dhaafin iyagoo wax ku darsan mooye waana mid ducaynaa wixii wax ku darsada insha allah. tahriibku waa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada waxaana jira dad fara badan oo ku maqan halkaasi sidaasi darteed ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaa laga codsanaya inay caawiyaan dadkaasi si ilaahay farash khayr qabo ugu furo.